ayadoo dadaal looga jiro sidii dhalinyarada Soomaaliyeed ee shaqo la'aanta looga sameyn lahaa shaqo abuur si dhalinyaradu ay u helaan shaqooyin ayaa xarunta la talinta cilmi baarista ee Best Consultancy ay imtixaan ka qaaday in ka badan 300 oo dhalinyaro oo shaqo abuur u sameysay shirkadda Road Electronic kuwaasi oo qaban doona shaqooyin kala duwan qaar ka mid ah dhalinyarada imtixaanka u fadhiistay ayaa ka warbixiyay dareenkooda ku aadan imtixaanka ay u fadhiisteen waxaan ahay mid kamid ah ardayda qabka waxaan ahay mid kamid ah ardayda magaalada Muqdisho ku joogay ilaa iyo heerkooda jaamacadeed ilaa iyo heerkooda labada aaminsanadiga waxaan maanta meeshaan nimaanay aan qodobno imtixaan ay qaadayso shirkadda lagu magacaabo Best Consultant Training oo ah mid kamid ah shirkadaha magaalada Muqdisho ka shaqeeya oo ku caawiyo dhalinyarada in ay helaan hadii ay helaan traininada waxbarashada hadii ay helaan shaqooyinka magacayga waa Farxad Cali Umar maanta soo qodobno barnaamijkan حانك اللغة الشغلانة الأول اللغة الصومالية قبلنا يدرس الفرنسي مارسة وأبوها اللغة الصومالية الشغل من الفرنسيان لكن شغلتها يدفع شغلها يشتغل وبعد شغل رقم الفرنسيان الفرنسي marka aad aan u faraxsanahay maanta in la barnaamijyo caasa oo dhalinyarada Soomaaliyeed shaqo lagu abuurayo ay ka faa'iideysan karaan u tahay maamulaha xarunta la talinta iyo cilmi baarista ee Best Consultancy Nuur Yuusuf Nuur oo ka hadlay goobta ayaa kula dardaarmay dhalinyarada helay shaqo abuurka in ay ka faa'iideystaan shaqooyinka ay heleen Allah subhanahu wa ta'ala imtixaankii fududeeyo inaan ku dadaashaan qof walba inuu helayo wixii Ilaahay u calfay marka waxa weeyta kulli saacad dadaankii kugu sheegay inaad isticmaasho maskaxdaada waaye imtixaanka la keenay wuxuu badaya maskaxda marka maskaxda ka isticmaasho laga yaabo inay xogaa wala sanbaro waxaan rabaa inaan u mahad celiyo Road Electronics si nagu aamineen inaan u soo saarno dad uga shaqeyn lahaa xaruntooda dad ay ku aamin lahaayeen xogtooda dad ay rabaan in maamulaha Road Electronic mudane Maxamed Daahir ayaa tilmaamay in muhiimada ay u leedahay dhalinyarada shaqada helay taasoo uu ku tilmaamay in ay tahay horumar lagu tilaabsaday dhalinyarada shaqadoonka jaamacadaha Soomaaliyeed waxay soo shaqeeyay meelaha kala duwan laga yaabo in soo shaqeeyay CV-da dadkii badnaa oo soo codsaday la soo kala xulay in uu ku dhacay ama nasiibku u heshay in laga waro imtixaanka oo kala saarista ugu dambeysay ay maraan halka shaqeeyay marxalad oo leeyahay Best Consultants sidoo kale barnaamijyada muddooyinkan ayaa maamulka gobolka Banaadir dadaal ugu jiray sidii dhalinyarada Soomaaliyeed ee shaqo la'aanta ay u heli lahaayeen shaqooyin si ay u dhamaato dhibaatooyinka shaqo la'aanta haysata dhalinyarada Soomaaliyeed Muuse Cismaan Abtow warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho